xaragada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay digniin adag u jeediyeen dawladda dalkani Kenya oo markaas ciidamo ay leeyihiin ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya. ciidamadaas ayaa markii dawladdan Kenya ay sheegtay inay la dagaalamayso ururka al-shabaab waxa ay gudaha u galeen dalkaasi Soomaaliya. waxa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wariyaha halkaas inaga soo warama Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag. afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo shir jaraa'id ku qabtay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa uu digniin xoogan u jeediyay dawladda Kenya oo dhawaan ay ciidamadeedu gudaha u soo galeen qaybo kamid ah gobolada koonfureed ee Soomaaliya. Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere ayaa ku eedeeyay dawladda Kenya in si xadgudub ay ku soo gashay ciidda Soomaaliya isla markaana ay diyaaradaheedu duqeyn xoogan u geysteen xoolo dhaqato Soomaaliyeed. waxaan ka maqalnay maalmahan labada maalmood ee ugu dambeysay wasaa'il islaamka inay dawladda Kirista Kenya si cad ay u cadaysatay dagaalka ay kula jirto muslimiinta iyada oo islaamka ay runtii si bareer ah oo cad ay uga sheegeen inay la dagaalami doonaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayna kula dagaalami doonaan meel kasta oo kamid ah dhulka Soomaaliya. dagaal toos ah ayay ciidamadoodu marka horeba ku yimideen gudahan haddana runtii waxay waa cilaansadeen oo waxa weeye warbaahinta ayay ka sheegteen hadda in badan isqarin jireen. waxaan leenahay marka haddii aynu nahay xarakada shabaabul mujaahidiin dawladda Kenya dagaalka iyo colaadda aad sheegteen in dhulkeena aad ku soo qaadaysaan marka hore ma ka fakarteen cawaaqibtiisa ka imaanaysa ma taqaanaa natiijooyinka dagaalka. runtii waxaan leenahay innagaa idinkaga aqoon badan dagaalka waxaynu nahay dad weligood ku soo jiray la halganka dawlado badan oo idinka ka hor nagu soo xadgudbay. waxaan leenahay dagaal haddii aydaan aqoon dagaal waa dhiig, dagaal waa burbur, dagaal waa hantibeel, dagaal waa barakac, waa daaraha dhaadheer ee aad ku fantaan oo dhulka ka hoos mara, dhaqaalaha oo burbura, waa ammaankiina oo isu beddela nolol cabsi iyo argagax badan, waa dalxiiska oo ah meelaha aad ku tiirsan tihiin oo meesha ka baxa. waxaan leenahay adinkoo intaas ka fekeray miyaa dagaalkeenna doorateen? uma malaynayno aqoon-yahanada Kenya inay haa oran doonaan. haddii sidaa aad tiraahdeen xeerka qolada gaalada lagu magacaabo qaramada midoobay qodobkiisa aad ku sheegteen 51 uu idin ogolaanayo inaad ku xadgudubtaan dhulkeenna muslimka ah dhiiggeenna iyo sharafkeenna annaguna ilaahay jalla wa ala kitaabkiisa aayadda 194 ee suuratul baqara ayaa waxay noo ogolaanaysaa inta aad noo geysataan oo kaleeto in la idin geysto. ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. waxaan leenahay ka fiirsada xadgudubyada aad ku soo samaynaysaan dhulkeena muslimka ah waxaad dib u eegtaan dadkii idinka horreeyay adinka ee nagu soo xadgudbay wixii ay ka dhaxleen xadgudubkoodii. Musafiriga Uganda weydiiya waxa shacabkiisu ugu soo jiiday dhibaatooyinkii ku dhacay 11 Juulaay sanadkii hore. taasi waxay jawaab sharci ah oo cadaalad u ahayd gumaadka ay dhulkeena ka geysteen ciidamada Uganda. innaga ayaa inta dhulkiina ka tallawnay ku beegsanay cadawgaasi nagu soo xadgudbay gudaha dhulkooda iyo caasimadooda Kampala. soo kuma habboona dawladda Kenya inay ka fiirsato tallaabooyinka ay qaadayso. mar afhayeenka la weydiiyay eedeynta ka imaanaysa dawladda Kenya ee ku aadan in xarakada shabaab ay afduub ka geysteen gudaha dalka Kenya ayaa waxa uu ku jawaabay waxa isweydiin mudaqadiyadahaasi goormay dhaceen. saraxay la isweydiiyaa fiican qadiyadahaasi waxay dhaceen dhammaantood markii Kenya ciidanka mooryaanta ah iyo murtadiinta ay keentay dooble ay keentay ka hor wax ka horeeyay haba yaraatee ma jirto. iyada marka fowdadii iyo wixii dhibkii ay ummadan la maagareeday ayaa ilaahay jalla wa ala ila ku celiyay. marka iyadoo ay isweydiiso dhulkana ayada qastay iyadana fowdo bilowday iyada ay isweydiiso anaga waxa nagu adeegsan xog kama jiraan aba yaraatee wax lagu kuma laha xarakada shabaabul mujaahidiin
shirkani jaraa'id ee afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamo hubaysan oo ka tirsan dawladda Kenya ay gudaha u soo galeen xuduudda gudaha Soomaaliya. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag, Somali Channel, magaalada Muqdisho.